xilli dhowr jeer oo fadhi ay soo martay heerka maxkamadeynta eedeysanayaashan kala ah Mahad Maxamuud Cabdi oo loo yaqaan Abu Yaasiin iyo Maxamed Daawud Daahir Warsame oo isna loo yaqaan Dr. Raage ayaa lagu soo eedeeyay kamid ahaanshaha kooxda Daesh isla markaana xeer ilaalintu ay sheegeen in lagu soo qabtay iyagoo ku gudi jira qorshihii ay ku fulin lahaayeen dilal iyo qaraxyo waxaana ugu dambeyn maanta oo Khamiis ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay min 15 oo xabsi ciidan ah gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u akhriyay warbaahinta xukunka ay ka soo saareen eedeysanayaashan maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markaatiga qiraalka laga qoray labada eedeysane qoraalka uu eedeysanaha koowaad u qoray hordoogayaasha Daesh ee Shaam iyo gungaarka baarista uu sameeyay baaraha galdacwadeedka la xiriiray labada eedeysane maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedeysanayaasha xabsiga laga sii daayo xuriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii Daesh sanad ka hor haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaal Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yaasiin Maxamed Daawud Daahir Dr. Raage ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 15 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yaasiin oo ah eedeysanaha koowaad ayaa loo heystaa in uu ku mashquulsanaa aasaasidda koox Daesh kuwaas oo ka howlgali lahaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya halka Maxamed Daahir Daawud Warsame Dr. Raage isna loo heystay in uu ahaa hogaamiyaha waaxda caafimaadka ee kooxdaasi waxa uu sidoo kale ahaa u qaabilsanihii xagga soo ururinta lacagaha ay dibadda ka helaan kooxda Daesh si gaar ah eedeysanaha ayaa lagu muujiyay dambigiisa sida uu ugu gamban jiray ka ganacsiga daawooyinka ee markiisii hore uu ka bilaabay suuqa bakaaraha ee gudaha magaalada Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdullaahi Qoslaaye wararka STN Muqdisho